Bashir Maxamed Bahale hanti dhowraha guud ee Jubbaland oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa warbaahinta Jubbaland uga waramay wareegto dhawaan uu soo saaray hanti dhowraha taa oo la xiriirta heshiisyada ay hay'adaha dawladda gali karaan iyo sifooyinka laga rabo marka ay howlaha heshiisyada kala saxiixashada lagu guda jiro heshiisyada iyo qandaraasyada ay galayaan hay'adaha dawladda ayaa lagu sheegay dhamaantood in ay waafaqsanaadaan dastuurka dawlad goboleedka Jubbaland xeerka maamulka maaliyadda dadweynaha qaybtiisa 24aad iyo xeerka wax soo iibsiga dawladda Jubbaland qodobadiisa 4 iyo 6aad waxaan u sheegayaa wasaaradaha iyo wakaaladaha hay'adaha reer Jubbaland waxaan u sheegayaa in xafiiska hanti dhowrku oo waxyaabaha oo shaqadiisa ay tahay oo xaq u leeyahay in ay awaamirta ay ka qaataan haddii awaamirtaas sida ay ahayd loo fulin waayana waxay noqonaysaa in jidadkeedii ay lahaayeen inay u maraan waxaan codsanaynaa in mar waliba aanu u sheegnaa wasaaradaha iyo hay'adka wakaaladaha ee reer Jubbaland heshiis uusan ka warqabin hanti dhowrku inayna gelin heshiis walba oo la galayo waa inuu ka warqabaa xafiiska hanti dhowrku inuu ka warqabaa goobjoogna ka hada ciddii arrintaas muxuu ahaa fulin weysana waxay u ekaanaysaa cid indhaha ka qabsatay jiritaanka xafiiska hanti dhowrka dadweynaha iyagana waxaan u sheegayaa in xafiiska hanti dhowrka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa uu diyaar u yahay waxa la wixii xog ah oo hanti dawladeed ah oo isdabamarin ah diyaarkan inay xafiiska ay la soo xiriiraan haddii la yiraahdo iyadana waxaan diyaar u nahay inaan hawsha iyada aanu kala shaqeyno dadweynahana haddii la yiraahdo aan ku qancino wixii ay cabashadoodii ahayd oo xafiiska u soo gudbiyeen xafiiska hanti dhowraha guud iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Jubbaland ayaa muddooyinkii u dambeeyay waday dardargelinta howlaha shaqo ee xafiiska iyo sidii uu xoogga u saari lahaa ka warqabka howlaha shaqo ee ka socda xafiisyada hay'adaha kala duwan Cabduqaadir Axmed Cali telefishinka Jubbaland Kismaayo